Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal walaalayaal soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Cariif. Haddii ay tahay markaa kugu horeysay follow noo soo leh oo nagu soo bir aad iyo aad aa u mahadsantahay. Waxaa waaye maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc muhiim ah. Mowduuc oo ku saabsan Salwan Momika nin la dhaho oo 2023 ninkan wuxuu sameeyey 2023 oo si public ah wuxuu u sameeyey arrin argagax leh, arrin aad iyo aad oo dadka dhammaan muslimiinta adduunka aad iyo aad uga caroodeen, taasoo ah inuu kitaabka Qur'aanka si public ah u gubay, weliba asiga oo jees-jeesayo. Asiga oo jees-jeesayo wuxuu sameeyey in uu dowladda ciidamada booliska Sweden u wacdo oo dhaha waxaa rabaa in aan xorriyatul qowl dareemo. Xorriyatul qowl waxaa laga wadaa waxay aaminsan yihiin sharciga iyo baarlamaanka waddankaas in uu qofku wuxuu rabo samayn karo. Marka wuxuu dhahaa in waxaa rabaa ilaalo la iisoo daba diro oo waxaa rabaa aan sameeyo. Marka wuxuu sameeyey meel public oo soo aaday oo soo istaagay kadibna kitaabka Qur'aanka ayuu halkaas wuxuu bilaabay in uu ku gubo. Weliba dhammaan shaashadaha iyo TV-yada caalamka oo qabanayaan. Kadib saameyn ayaa wuxuu ku yeeshay ninkan social media meel walbo waxaa socday fiidiyowyadiisa. Dhammaan muslimiinta meel walba dunida ka joogaan aad iyo aad ay uga caroodeen. Kadib ninkan hal jeer iyo laba jeer ma ahan xitaa dhowr jeer wuxuu sameeyey arrintaas in uu kitaabka Qur'aanka uu gubo uu ku istaago wuxuu rabo ku sameeyo. Kadibna uu social media sidaas aad iyo aad loogu falceliyey. Ninkan mar uu live saarnaa xitaa wuxuu sameynaa wiil Maroccan ah uu kasoo jeeda waddanka Moroccan ee live-kiisa isla soo qabsanayaan. Kadibna wuxuu leeyahay wiilka Maroccanka isalaamayaan assalaamu calaykum wacalaykum salaam iyo waran see tahay luqad carabi ku hadlayaan. Kadibna wuxuu leeyahay wiilka Maroccanka ah waxaa sameysay arrin aad iyo aad u fool xun oo dhahay. Laakiin Allah subxaanahu wa tacaala waxba kama nusqaaminin waxna ma ku darin oo dhahay. Ma fahante? Wuxuu dhahay wax adiga Allah ku dartay iyo wax aad ka nusqaamisa ma lahan. Laakiin naftaada iyo muxuu ahaa iyo ciqaabka Allah inaad u diyaar garoodid waaye. Markaas asiga oo jees-jeesayo haddana oo mar kale wuxuu sameynaa in uu kitaabka Qur'aanka uu soo qabto asigoo live-ka ku jiro in uu haddana arrin kale oo fool xun sameeyo in uu kitaabka Qur'aanka uu muxuu ahaa uu jaro oo haddana arrin aad iyo aad kale loogu fool xumaado oo afkiisa ku tirtirto. waa afkiisa aadka iyo aadka u qurunka badan. أهلين، السلام عليكم. من وين يا صديقي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مغربي وأنت؟ أنا عراقي. ممتاز، بتنفذ شرفينا. أحكام؟ لا تسبق الأحداث. حكم بسيط، شنو ما أسبق؟ أنت تتأمل إنه تفوزني؟ الفوز ليس مادي، يمكن يكون الفوز معنوي أحيانا. نحن الآن الفوز هو مادي، المعنوي عندما نكون في جلسات حوارية. إذا كان تيك توك أو الحوار بدون معنى يكون تافه. إذا كان التيك توك تافه لماذا أنت تتواجد في التيك توك؟ لا، ما أقول أن التيك توك تافه، قلت أن الحوار يكون تافه إذا كان بدون معنى. ليس مهم ما نوعية الحوار. يا جماعة اكو ريحة حرق بالبيت. اكو ريحة حرق. لا الله كفيلك. لا، الله يقول لا تجادلوا الذين لا يؤمنون بالله. الله كفيلك. تنزل ولا؟ الله كفيلك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. لا يا حسبي. أنت لن تضر الله في شيء ولن تزيد في ملكه شيء ولن تنقص في ملكه شيء. أنت فقط حشرة نكرة. أنت إنسان ماسخ. أنت إنسان ماسخ. كانوا أمثالك يتفاخرون ويكرهون الإسلام ويفعلون ما تفعل بالقرآن، لكن عاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة. وجهك وجه الشر، وجه جهنم. لن تغيظني في شيء، لن تغيظني في شيء. صعد ضغطك ولا نزل سكر ولا شو صار؟ ضغطك أنت. أنا مؤمن بالله. شوف، أنا مؤمن بالله وعلى يقين بأن الله سوف ينتقم منك. إن الله عزيز ذو انتقام، سوف ينتقم منك أشد انتقام. marka ninkan dhacdooyin badan oo aad iyo aad u fool xun oo sameeyey. Wuxuu kaloo sameeyey mar oo si public ah oo meel public ah intuu soo istaagay asigoo calanka Israa'iil kor u hayo uu leeyahay dad badan oo waxaa u maleynaya oo Ciraaqiyiin inay meesha taagnaayeen. Markaasuu wuxuu leeyahay waa la idin tarxiilaya waddankiina la idin celinaya, waa la idin tarxiilaa waddankiina la celinaa uu leeyahay. Ciraaqiyiintii dadkaas wiil wuxuu leeyahay waddanka Ciraaqaan la celina. Wuxuu kaloo sameynaa calanka oo waddanka Ciraaq uu ku istaagaa. Luguhu ku tirtiranaa, kabaha ku tirtiranaa, sidoo kale wuu ku istaagaa.
marka ninkan ayaa arrimahaas aad iyo aad u foolxun sameynayo weliba meel public ah asiga oo cabsanayn. Markii ugu dambeysay asiga oo live saaran tiktok live ku jiro oo yacni ku doodayo in loo qaaraamo, yacni wuxuu leeyahay dowladda Sweden waxay diiday ninkan in ay sharci dambe siiso sababtoo ah dadkii shacabka ayaa kaceen oo wadanka dadka muslimiinta haddii aan lahayn iyo dadka dhan. Ninkan marka wuxuu dhibaato ku yahay wadanka iyo shacabka oo dhibaato ku yahay. Sidaas darteed waxay diiday dowladda in ay sharci siiso. Ninkan ayaa ku doodaya marka in uu maxaa la dhahaye uu abukaati iyo wax qabsado. Abukaatimadana lacag badan iyo aad loogu baahan yahay. Xilligaas uu live-ka ku jiray ayaa bartiisa lagu toogtay oo asigoo live-ka ku jiro weliba. Dowladda Sweden ilaa hadda wax oo yacni kama soo saarin ninkan ciddi dishay ciddi falka u geysatay laakiin baaritaano iyo wax inay sameynayaan sheegeen. Marka sidaas uu ninkan ku jiitay oo lagu dilay asigoo live saaran oo weliba yacni tuugsanayo lacag iyo wax in loo qaaraamo. Marka sidaas foolxun u dhintay. Maantana waxaa waaye ciqaabtii carrada Alle ayaa ku socoto oo sidaas ayuu qabrigiisa lagu geeyay. Marka saaxiibayaal waa mahadsantihiin haddii ay tahay markii idinkugu horeysay nagu soo biiro oo maxaa follow soo dhaha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.